ciyaar aad u xiiso badan oo lagu xaqiijiyay cidda ka qayb galaysa finalka ama kama dambaysta ciyaaraha maamul goboleedyada ayaa waxay ka dhacday magaalada Muqdisho waxaana ciyaartaas ay dhex martay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ciyaaryahanna matalayay Cabdirasaaq Cumar Maxamuud oo goobjoog ku ahaa ciyaartan garoonka ay ka dhaceysay Koonis ayaa warbixintan inooga diyaariyay kulankan u dhaxeeyay kooxaha ku kala ciyaarayay magacyada dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaa waxa uu ku soo idlaaday natiijo 2 gool waxba ah oo ay guusha ku raacday xidigihii matalayay dawlad goboleedka Jubbaland ciyaarta waxa ka soo qayb galay taageerayaal aad u tiro badan oo labada xul kala taageerayay waxaana natiijadu ay noqotay sanadkii labaad oo xiriir ah in finalka tartanka dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay tigsadaan xidigaha matalaya dawlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa Puntland oo shalay Banaadir ka gudbay kulanka kadib waxa Soomaali Cable la hadlay ciyaaryahanada labada dhinac iyaga oo ka hadlay dareenkooda dhanka Koonfur Galbeed ciyaaryahanka oo hadlay waxa uu rajeeyay in sanadka soo socda finalka ay tigsadaan isla markaana tartanka ay ku guuleystaan kubadda horta cad iyo madow waa wixii natiijo ahayn Ilaahay wuu naga saar garoonkan Ilaahay waxaan ka barinay waxa waa wixii natiijadeena waa helnay waxa waa cad iyo madow kubadda intaad waa la iska badiyaa waxa ku qanacsanahay guusho Ilaahay macnaa waxa Ilaahay una siiyay ku qanacsanahay waan iska faraxsanahay ayagan guushooda heedeen qeyraan u rajeynayna anigana sidaas oo kale waxaan leeyahay taageernimadiin lagu ma qasaarin waa lagu faa'iido oo kaliya waxaan idin rajeynayaa sanadkan sanadkiis kale taageernimada inay sii laba jibaadaan u rajeynaa insha Allah sanadka la soo dhaaf waa u jeedeen meel aan ku harnay sanadka meel oo kale sanadka dambe waxaan tigsan doonaa finaalka insha Allah waana qaadi doonaa maxamed deeq oo ah ciyaaryahan sanadkii hore u ciyaaray dawlad goboleedka Jubbaland sanadkanna mar kale nasiib u yeeshay inuu matalo waxa uu dhankiisa rajeeyay inay tartanka sanadkan ka dajiyaan garoonka Olympic ee kubadda cagta ee magaalada Kismaayo Soomaali Cable aad ugu mahadsantiin sida wanaagsan ciyaaraha u daadiinaysaan waa idinka mahadcelinayaa guusha galabta gaarana guul way sugay ahayd dadka inta badan saadaashoona waxa u maleynayaa waxay dhahayeen finaalka idinka imaan doono koobkana waa qaadi doontaan waxaan u maleynayaa maalinta ciyaaraha ay bilaabinayaan anoo salaadii tukanaya waraysi ay qaado oo ahaa maxaa rajeynaysaa koobka alxamdulillah maanta koobka waa taaganahay inaan qaadaan rajeynaya idinkan aad idinku mahadcelinayaa wallahi bilaa isbedel uu imaan kara waa kubadda maalin qof ay u helaysaa cadaan iyo madow waay insha Allah waxaan rajeynaynaa maanta jamcada finaalka inay dhinacaan u dhici doonto Jubbaland ageendada barxadda Olympiga noo balna Reexmile tartanka dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa waxa uu marayaa heer gabagaba ah waxaana kama dambaystiisa ku balansan kooxaha ku kala ciyaaraya magacyada Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo la xasuusto in sanadkii hore sidan oo kale finalka isugu yimaadeen maalinta jimcaha ah ee soo aadan ayaa lagu wadaa in kulanka kama dambaysta uu dhex maro labada xul ee Jubbaland iyo Puntland waxaana laga dhursugayaa natiijada sanadkan sida ay noqoto hadii ay Puntland labaysato iyo hadii Jubbaland ay soo noolaadaan markooda Cabdirasaaq Cumar Maxamuud Soomaali Cable TV garoonka Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho